بسم الله الرحمن الرحيم مجيء محمد موسى حسن وحنا اسمها سمت آي لاب أو حرمتها لورك جامعة سمت حقيقة سمت آي لاب حلو سمي وحواي إن نقطع حرم لست حرفها دنيا الصومالية وحنا الله فريد اللي قدوله أرمو أي جامعة وأركتي أو كسبسن dadka ka soo qalin jibiya jaamacadda dan si loogu dhaweeyo marka dadka suuq waxa la sameeyay simad ay laab anaga marka dadku waxaan u diyaarnaa mainly saddex qayb wax waaye qofka inuu halaawur barto oo asiga ganacsi u leeyahay sameesto qayb waxa waaye qofka in loo diyaariyo shaqaalanimo oo qofka shaqaale noqdo oo internship loo raadiyo hadduu fiicnaadana full time jobs oo helo qaybta saddexaad waxa qofka inuu freelancer noqdo xirfadley dadka ka gadan karo adeegiisa consultant naqan karo marka intaas dhooran ka shaqeynaa hadda xaruntu shaqo fiican ay ka socoto oo dhowr mashaariic waxaan wadnaa mashruuc la yiraahdo digital skills for jobs oo fangareysa dowladda Japan waxaan wadnaa empower next generation oo US embassy waxaan wadnaa the next economy oo the foreign minister of Netherlands adiga marka kun qof arday waa dhaafeen hadda dadka ka faa'iideysta adeegyadena marka ku soo dhawaada simad ay mahadsan aad iyo aad u mahadsantahay mudane maxamed muuse waxaan kale jeclaanaa ku weydiiyo horta waxyaabo ayaa soo hadal qaaday oo tiri mashruucyada qaarkood wadamada ka qayb galay sida Japan iyo Netherlands oo fangareeyo waxaan jeclaanahay inaa wax la qalmo xitaa Smith Eye Labs iyo Innovation Center inaa jaamacadaha kale oo gobolada kale xitaa laga asaaso oo marka maxaa isleedahay fursadaha jirta Soomaaliya dalka lafteeda iyo challenge-ka idinka la kulanteen marka asaasiseen Smith Eye Labs iyo Entrepreneurship Center oo hal-abuurka shaqo-abuurka waa mahadsantahay Ustaad Axmed aad waa mahadsantahay horta waxbarashada sare guud ahaaneed ee Soomaaliya ciladaha loo jeediyay waxa uu waaweyn laba cilad midda koowaad waa communication-ka ardayda Soomaalida ay jaamacadaha ka baxa communication-koodu waa very low the other thing waxa waaye in ardayda local wax ku barto skill-ku uu yahay mid aad u xadidan waxaan ugu wacan habka waxbarashada oo iska on class based extracurricular tira badan qofka uusan lahayn qofka marka arbis ma helayo wuxuu ka soo baxaa soo aan skill xooggan lahayn ayadoo marka labadaas arrin laga jawaabay jaamacadda Simad waxay sameysay Ingiriiskana qasab ay ka dhigtay in qofka luqadda uu barto waa mandatory mid labaadna waxa waaye inuu qofka xirfad yeesho markuu senior-ka marka xaruntan hal-abuurka hadda maanta ugu soo booqateen ardayda senior-ka waxaan u diyaarinaa inay suuqa u diyaar garoobaan there's life oo ka duwan jaamacadnimada waxaa jirta nolol kale oo professional oo ka rabta xirfad haddaan xirfad lahayn aadan wajihi karin marka si ardayda taas ugu diyaar garoobaan meeshaan aan keennaa waxaan u sheegnaa suuqii waxa loo dhawaado oo waxbarashada waa ka soo baxdeen xirfad ha loo yeeshto hadda dadku waxaan u barnaa tusaale ahaan digital marketing aan barnaa web development aan barnaa mobile apps aan barnaa graphic design aan barnaa those things are 21st century skills oo qofku suuqa dadka hore shaqo ka heli karo marka hadafka loo sameeyay saas ayay waxaa ugu weynaa un ardayda in la sii xirfad communication-kooda la dhiso si suuqa micno ugu yeeshtaan employers-kana ay u hayr garay karaan ardayda ka soo baxay jaamacadeena masha Allah aad iyo aad u mahadsantahay horta waxaan xaggan u imaado waxaan ka helay waxyaabaha shaqooyinka qabanaysan waxaan xasuusanay xitaa meel ay tustay igu tiri qofka fikirkiisu leeyahay fikirka wuxuu u soo jeedin karaa jaamacadda iyo xitaa ganacsatada kadibna hadda fikirkiisa laga helo qofka fikirkiisa laga helo waa la maalgelin karaa horta waa inuu business plan waxyaabaha qoraa dadka qanciya marka waxaa tiri kumanaan dhalinyaro ka faa'iideysta ma haysatiin data imse qof business furtay samayso kale waa mahadsantahay sida aad sheegtayba xaruntan hal-abuurka waxay leedahay qaybo kala duwan qaybahaas waxaa ka mid Kawakan Space oo meel ardayda fadhiistaan 6 bil ay jaamacadda waxay ogashaa inay business idea-dooda ka shaqeeyaan koronto iyo internet iyo waxaasna jaamacadda for free 6 months qofku markuu wixiisa iskugu tooso marka then wuxuu sameynaa suuq u guuri karaa hadda marka so far for example just 2021 sanadkan hadda sii dhamaaday waxaan tababarnay arday 500 kor u dhaafaysa 29 startups
ID validation la sameeyey crowdfunding aan ku sameynay qaarkood hadda shaqo abuur kasii shaqeeyo oo dad ay sii shaqaaleysiiyo waxaa kaloo dheeri ah mashruuc waxaa jira aan kala shaqeyno ILO oo ah ganacsatada dumarka ganacsatada ah in ganacsigooda formal laga dhigo small ka baxaan process loo fadhiisiyo oo costingkooda accountingkooda marketingkooda kulli la fadhiisiyo marka yes haddii ay tahay startup almost soddon waa gaarnay haddii ay tahay shaqo abuur caadi 150 qof shaqo internships la geeyo hadda oo shaqeeyaan haddii ay tahay scale upna ilaa iyo I would say 60 ganacsi dumar ay leeyihiin hadda formal ah oo shaqeysa masha Allah kelimadaha qaarkood ay isticmaasho waxaa dhici kartaa dadka qaarkood inay boqolkiiba qof fahamsaneen sida crowdfunding skill up marka kelimadahaas hadaa af Soomaali dadka u turjumo waa maasantahay waxyaabaha anaga aan sameeyno waxaa kamid ah crowdfunding waxaa laga wadaa qaaraan ganacsi waa qofku markuu fikir la imaado fikirka lacag hore kama siino waxaan dhahnaa fikirka inuu shaqeynayo natus dadka lacag ka raadi dadka inay ku support gareeyaan haddii marka dadku ay ID-daada ka helaan ay lacag ku siiyaan macnaheedu waxa waaye waxaan waa viable valid ah oo suuq la geey karo way shaqeynayaan marka crowdfunding waxaan ka wadnaa qaaraan ganacsi waa familka asxaabta inaa u tagto oo tiraado inuu ganacsi bilaabo oo halay support gareeyo dan ay lacag ugu dabtaraan marka lacagaas ay ku siinayaan waxa loo yaqaan crowdfunding sababta crowdfunding aan u rabnaa waxa waaye bangiyadu ma jeclaan inay lacag siiyaan dadka ID-da jooga stage-ka waxay jecel yihiin dadka suuqa jooga bis inay lacag siiyaan marka ardaydan waa arday hadda arjo ah cusub suuqa marka aan weli galin marka lacag ma heli karaan marka financial access-ka waa ku adag yahay dadka markay bilow yihiin ardayda marka saas waxaan u dhahnaa qaaraan ganacsi la raadiyo oo crowdfunding hala okay masha Allah qaybta tariikh xitaa maxaa la dhahaa 6 bilood yaa dhalinyarta la siiyay inay meel ka shaqeeyaan oo maxaa fikradooda ka shaqeeyaan oo xitaa koronto wax kasta laga bixinayo horta waa fikrad aad iyo aad aan ka helay oo jaamacadaha kale wali kuma helay marka maxaa faa'iido xaggaana ka soo kordhay dhalinyarta laftood kolleed waxaan filaynaya kuna soo laabteen experience-koodan la qaybiyeen dhalinyarta aad ardayda sababta ugu weyn oo saas u sameynayna waxa waaye ardaygan markuu cusub yahay rent ma bixi karo oo kirama iska dhiibi karo marka haddii kira bixi la dhahana wixiina hadday bilaaw yihiin marka ma awoodaan marka qofku waxaa la siinaya meel uu fadhiisto wixiisa maalmoba ka shaqeeya 6 bil oo wixii wada marka isugu toosto marka suuqa waada ardayda marka it's working good oo hadda natiijo fiican ka socoto arday badan oo hadda waxaa jirta real projects ay leeyihiin maalmoba imaado oo ka shaqeeyo diyaarna ah marka inay hadhow magaalada ku galaan marka jaamacadda weliba hadda step kale sii qaaday waxay rabtaa inay fund portfolio lacag ay anaga leenahay in la keeno oo bangi green bangi anaga isla maamulno hadafkuna uu yahay marka qofkii IDs fiican tahay in maalgelin jaamacad siiso iyadoo weliba aanan wax interest aan laga rabin just lacagtaas inuu iska soo celiyo muddo kadib marka clear ardayda inay business sameeyaan fikir la imaadaan kuma taageerno maalgelin hataa waa u sameynaa oo waxaan inay wixii dhaweeyaan shaqo abuur ay qayb ka noqdaan masha Allah waxa kale xitaa rabeen aan kala hadlo waxaan xasuusanaynaa meel tusta kale kadib yaan Maxamed Ghazali toorka la sameeyay meel xitaa dhalinyarta haddii de waqti dheer shaqeeyeen maskaxdooda isku yar dhaxay caday yar nasan karaan oo yar seexan karaan sabcan Simon Island xarunta hal abuurka jaamacadda Simon waxay ka kooban tahay dhowr qayb waxaa kamid ah meel co-working space ee ardaydu ku shaqeystaan waxaa kamid ah Fab Lab oo meel ay ardaydu wax ku dhisaan fikradaha ku curiyaan waxay leedahay meel napping spaces ah dadka long hours kana la joogo oo maalintii dhan fadhiyo meel ay inta tagaan ku soo gududsan karaan ee haddana shaqada sii wadi karaan waxaa leenahay workshop spaces waxaa leenahay event spaces waxaa marka all these waxaa loo sameeyay in la dhiso dhaqan ah in hal abuurka xoog la saaro shaqo abuurka qayb laga noqdo dalkaas ka warqad warshadana ma laha shirkado tiro badan ma laha marka wax dad shaqaaleysiin kar lama hayo marka qofku waa inuu asiga shaqo abuuro si uu ugu baxo cilada ay shaqo la'aanta marka waa arintu weyn saas oo sameeyay ma sha Allah marka waxaan kala doonaan ku weydiiyo maxaa jeclaan lahayd inaad simad labs iyo mashruucyada qabanaysiin inaad 5 sano ama 10 sano
جو هدف كينا أنا جوشنا قارتين سفيان أحمد وما سنتاي أنا وحالنا وحلوي قانا فيجن 500 ولا جوده إن أنجرنا 500 ستارت أبس وجامعين أي سميان هذا أوفيستيد جناسية الصومالية 500 ستارت أبس أديك غير على مدة فانسين حوجة شن بقول شركة يرير أي سميان ضد جامعة كسوق الجميع سيد هذا أكبر قبضة دلك صوماليا جناسية ترى ضد كسمي ضد جامعي معه والدين تاني ضد كساكمتها وحي ترايل ايرور كسمين اسكودي كسمين لكن حربنا نجا إن صوت صارنا شركة يرير أي سميان ضد جامعيين علمي له جناسية كشقين كان مركب فيشن كاس وماشى أول صان وحنا كنا ربنا إن دلك القيب كنا قنوا حل كيس شقة أورك حربنا إن unemployment نوالا ودلك عربتري إن القيب كنا قن إلا حلي وحرمنا مرك إن تدك شقة أوريال نقدان وإن كلية شقة لا ودرادين وحرمنا تدك نقدان تد أي حرفة وشقة استو فريلانسرز وحرمنا تدك نقدان لتليال أو consultants مرك سي وبوت إلها شقة أورك سي لا وبوت مرك that's the vision ياركتي good علينا ما شاء الله إن شاء الله نقول لي سندم وما سنت أحمد وحكلام جعلنا كده أنا حوالي جان هدا وحسن لميد لسمين كرو national level دلك أو جامعة ذاك يو سنة شقين كرام مرة صار competition يعني competition أو positive أو collaboration basically سلاش شقين حتى يو competition جامعة ذاك بحرو بسرعة ددالك لسيمو جيو أو دليرتنا مركا أركي كرام بل مثلا مقدشة أما جامعة السنة هرمور كاسا كسعراء أنا كنا وحصار بنينا نقارنا بيننا لا قيب قلنا هرمورك ولا لهيني أنا جامعة السنة دانا وحنا لوي قناة بحواي يريدين قفل بأوفرنته ماشي أنا أسميني عشرة أنا كبرني يوحي قبرت وحنا ديارنا إن لو ذاك الجامعة كست الصومالية ساشيك لأن هدف كان وحوي هاي بين الشقاء أبور الله سميه قيبنا لا نقول إن unemployment يدلك شغلان تبعثن الله حالي مرك عيد كستو دنينيس إني حالي شغلان تدلك كجرت أنا وحن ديرنا إن لا صاحبنا إن لو ذاك قاتنا سلا نقنا دنا شغال سلا مركا لو ما سنتين جزاكم الله خير محمد موسى عدياد وما صنته وقتها قال قرر نسيسه anytime سوري جزاك الله خير